waxaa macquula aniga iyo adiga iyo dhammaan dad badan oo muslimiin in maskaxdu ay ku wareegto waa maxay sababtaan u soomno ama markay maqlaan soomka waa maxay waxa ku soo dhaca haa adiga waxaa laga yaabaa markaad soom maqasho in wax kugu soo dhacaan laga yaaba in kugu soo dhaco waa maxay sababtaa u soomno السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكا دركنا waxaan rajinaya dhamaantiin bayna leeyihiin ma sha Allah. Fadlan hada ku cusubta channelka diinta macaankeeda oo soo beeri kartaa markaasna subscribe oo noo saar kartaa si markaas dhirigle ay nagu noqoto hadii aad kamid ahayna ku soo dhaw waxaan rajinaya insha Allah dhamaantiin bayna meeshan ka soo waxa duuna aakhirada faa ma sha Allah. hore waxa uu sheegay inaan soo gelin doono video kaasoo ka hadli doona sababtaan u soomno waana videogan laakiin waxa rajeynaa inuu soo dahay laakiin marka waxa ay leeyahay hadana teamka diinta macaankeeda naga hal noqdo dhamaan dadka ku xiran channelka diinta macaankeeda ma sha Allah. waxaa macquula aniga iyo adiga iyo dhammaan dad badan oo muslimiin in maskaxdu ay ku wareegto waa maxay sababtaan u soomno ama markay maqlaan soomka waa maxay waxa ku soo dhaca haa adiga waxaa laga yaabaa markaad soom maqasho in wax kugu soo dhacaan laga yaaba in kugu soo dhaco waa wallahi waa xilliga ramadaanka qof kale waxaa laga yaabaa in kugu soo dhaco waa wallahi waa xilligii cuntada macaan la cuni jiray qof kale waxaa laga yaabaa in kugu soo dhaco wallahi xilligaas maaha waa xilli maxaan ku dhahaa masaajidka mar walba aad wax khayr la sameeyo marka qofba waxaa laga yaabaa in fikrad ku soo dhacdo laakiin maanta waxaan rabaa inaan kuu sheego sababta dhabta ah aan aniga aad u soomno sababta dhabta ah ee dhammaan muslimiinta u samaan meel walba ay joogaan midna kugu daraya waxaan rabaa inaan kuu sheego maaha falsafad ka timaad maxaan ku dhahaa sheekh ama culumo ama maxaan ku dhahaa qaari weyn may laakiin waxa maanta rabaa inaan kuu sheego xaqiiqdu waxay ka timaaday Allah ilaahaygu nagu amray inaan soomno ayaa noo sheegayo sababta uu nagu amray inaan soomno sababta khasab nooga dhigay inaan soomno asiga ayaa noo sheegay man aha fikrad ka timaaday bil aadan ee waa hadalkii Allah fadhigeys wacan waa maxay sababta u soomno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إله آيادان وحو كليهاي يا أيها الذين آمنوا تديهم مسلمين تا إلهي رسولك سرميو كتب عليكم الصيام وحادوشين واجب لإذنكي لإنا الصومتان كما كتب على الذين من قبلكم سيدي حتى دادك إذنكوري إيغا حتى واجب لوغي أيا إذنكينا لإذنكي لإنا الصومتان آيات قيبت قداميسا أيو إلهي كوشيغي صوبت واجب أنك نوغي لإنا الصومنو يددك نغوري مسلمين نغوري يا أهين ربن إسرائيل إلهي مركا آيات وحكوسو ختمي صوبت وحاواي لعلكم تتقون لعل ميبي waxaa laga yaabaa in markaas Allah ka cabsigaada uu siyaado in markaas iimaankaaga uu siyaado in markaas taqwada ay siyaado marka Ilaahay muxuu leeyahay sababtaan u soomno waa maxay waxaa laga yaabaa iimaankaaga inuu siyaado waxaa laga yaabaa taqwada inuu siyaado ha haddii maanta marka qof aniga ii yimaado oo igu dhaw Abdiraxmaan maxaa u soomtaa xaqiiqda waxaan ku dhahayaa la'allakum tattaqun waxaa laga yaabaa iimaankaaga inuu siyaado saadartada aan u soom okay waxaa laga yaabaa marka in maskaxdana ka dhex guuxiso qofka marka uu soomo Ramadaanka uu soo galo ama xataa soomka kale uu soomo aan Ramadaanka ahayn sidee buu Allah ka cabsigiisa u siyaadiyaa sidee buu iimaankiisa u siyaadiyaa okay ma ogtahay marka aad soomantahay inuu dagaal dhaco in dagaal uu ka dhaxeeyo qalbigaaga iyo dhammaan xubnaha jirka intiisa kale tusaale marka soomantahay dhuuntu waxay ku dhahaysaa war waa ooman ah waa qalalay ee BC qalbiga waxa ku leeyahay isku xishadun yahay maanta ku horeysa Ramadaankii xataa aan furma dhawa aamus caad waa iska adkayso ha caloosh waxa ka yeerisa yani gaajo darteed waxa ku dhaysa bilis igili maxaa ku dhaca cambuuladii waxa ay gelin jirtay wax macni aan wax cuno laakiin qalbiga muxuu ku leeyahay wah calooliya maxaa ku dhacay casirkii baa la mariyay wali aan furkii lama gaarin aamus joog indhuhu waxay rabaa inay meel fiiriyaan laakiin qalbiga waxa ku leeyahay soo jees indhaha maalanta waa soomanta ilaa markii uu ka aqbalo miyaasa macni Ramadaanka boontiga ma fahamtay xubnaha jirkaaga dhuuntu waxay rabtaa inay Ilaahay caasiso oo biyo la mariyo laakiin qalbiga waxa ku leeyahay waa soomanta marka biyo kuma siin karo indhaha waxay rabaa inay xumaan fiiriyaan laakiin qalbiga waxa ku leeyahay soo jeeso xumaanaha fiiriyo hadii kale Ramadaanka ma laga aqbalayo caloosh waxay rabtaa in wax la geliyo laakiin qalbiga diidaya dhagahana waxay rabaa inay wax maqlaan laakiin qofku muxuu dhahaa inuu xanta iga daaniyo waa soomanahay maalinta bara markii aan soo Ilaahay naga aqbalo naga daa markii uu xanta maan sama jeedid marka xubnaha jirkaaga waxay rabaa inay Allah caasiyaan laakiin qalbiga wuxuu leeyahay waxa sameeyeen maxay yeelay waa sameeyeen okay waxa rabaa inaan kuu sheego bisha Ramadaan
waxa aan ku jirno waa tababar xaqiiqada si fiican dhegeyso tababarkan waxaa la siinayaa qalbiga la siinayaa qalbiga waxaa tababar loo siinayaa inuu xakameeyo oo xukumo xubnaha jirkaaga ku yaala inay rabbigood aysan caasin sida markay dhuunta dhaysi biya u baahana laakiin biya cabbi kartaa markaa soomanta waa marka hadaa cabtana dambi kugu noqonaysa indhaha meesha rabay ba fiirin karaa may hadii kale de soomkaaga ma la aqbali marka dambi baa gashay marka bisha ramadaan waxaa tababar la siinayaa qalbiga kaasoo ah inuu xukumo xubnaha jirkaaga inuu xukumo meesha isha ay fiirinayso inuu xukumo meesha lugta aadayso inuu xukumo waxa dhegta maqlayso inuu xukumo waxa caloosha geliya inuu xukumo waxa ku halaysid soo ma jeedid okay waxaad garataa haddii qalbigaaga markuu awood u yeesho in xubnaha jirkaaga oo dhan micni maxaan ku dhaha xumaanta uu ka reebo wanaagana uu furo oo indhaha ku dhaho meesha fiirin meeshaan fiiri oo lugaha ku dhaho xaggaasa aadina masaajidka aad uu dhagaha ku dhaho xanta ha maqlina qur-aanka dhegeyso haddii qalbigaagu awood u yeesho in xubnaha jirkaaga uu xumaanta uu ka reebo inay rabbiga caasiyaan uuna markaas ku amro in maxaan ku dhaha waxa khayrka ay sameeyaan haddii marka taas ay dhacdo waxaad ogaataa marka iimaanka qalbigaada ku jira iyo alla ka cabsiga qalbigaada ku jira waa uu siyaadaya maxaa yeelay mar walba maxaan ku dhaha wanaagga ay samaysid macaasidana aad ka tagtid waxaa kuu siyaadaya iimaankaaga iyo alla ka cabsigaada subxaan allah ilaah marka bisha ramadaan waa bisha cibaadada qalbigana sidoo kale wuxuu qaadanayaa tababar midna waa kuu sheegaya marka qofka markii tababar la siinayo wax adag macni lama horkeeno soma tusaale marka adaada lagu tababariyo ciidan lagu tababariyo oo xabad aadaysa macadiga toos lagu geeyo markaas xabad ku tababaranaysa may bombala meel lagu saariya markaas ku ridaysa soma marka training wax fudud waay hadhow baa xalaaraba hoosh adag inay qabato taasoo ah in cadiga aad toos ugu ridid سيادرت مرك الله محوسمي شيطانكو كاحر توبرك معنا قلبي لسي وحال الربا إنه فضاله مرك الشيطان كدبي لها أو كوسواسي لها والله قاحر مرك وحال مرك قلبي وحو أبود ولا هاي إن محان كده أو ستوس أو حكمه سيادرت مرك وحا عارك سيادان معيني مرك حلق عادية حما أنت آدو عادي سنجري لكن مرك رمضان تمادو ما شاء الله يهين محاسبي محايل وحي دبي لها بالريحر الشيطان بالريحر سبحان الله أوكي dadka muslimiinta ah Soomaan laba u kala baxayaan adigu ka istaafiir anoo isfiirinaya dad waxa jira Soomaan iyo dad aan Soomanayn haddana laakiin isku qaba inay Soomayihiin dadka sida saxda u Soomo waxa waaye dadka qalbigoodu awood u yeeshay in xubnaha jirkooda maxaan ku dhaw oo xumaanta ka reebo khayrkan uu faro dadka xumaanta iska daayay bisha Ramadaan si fiican quraanka u akhriyo si fiican quraanka u xifdinaya si fiican quraanka waqti u bixinaya inay fahmaan ilaahay maxaan ku dhaw salaadiisa ku dadaaliya dadka macni cibaado badan sameynaya xumaantana ka fogaaday waa dadka sida saxda u Soomaan dadka laakiin Soomaan haddana isku qabaan inay Soomaaliya laakiin ila agtiisa aan Soomaaliya ma taqaana waa dadka kaliya ka Soomay oo iska joojiyay cunida iyo cabitaanka waa dadka indhahooda waxay rabaan iska fiirinayaan waxaad arkaysaa dad Soomaan haddana ku dhaayeen wallahi filmkan baa daawanayo iska daawanaya maxay leey salaad waxaan ku gaaraya afurka really meeshan dad bal xamanaya oo furiya oo qoslaya salaadii masaajidka adinku maqnaa laakiin salaanduhu ceerux leeyahay dhim malahan hodhawaan tukanaya habeenkii tarawih la gaar meesha usoo bixilay maxaan ku dhaar rabbiga maxaan ku dhaar abaas abaysid laakiin se asagana aan waxaan sameeyay bisha Ramadaan habeenkii okay dadka marka labada kooxood oo kala baxan kuwa si sax u soomay iyo kuwa aan si sax u soomayn labada kooxood waxay la mid yihiin laba qof oo qoratay maxaan ku dhaar boolis qoratay markaas labada qof waxa lagu yiri tababar baa la siinaya tababarkiina waxa way inaad orodaan oo maxaan ku dhaar gidaarkaan aad ka boodaan gidaashiisa aad tagtaan 10 jeer اوكي انت سلمياه labada qof waxay sameeyeen labada qof bay soo ordeen 10 jeerna waxay tageen darbiga gadaashiisa tageen laakiin iska si uma tagin mid uu soo orday darbiga markuu yimaadana wuu koray gadaashiisa u tagay 10 jeer halka kan kale intuu soo ordo yiri waxaan hol adag waa intuu soo dhanka uga saleexday oo gadaal tagay هذا لوان قف حدا هاتلي محان كودا توبرك سيف عم بقص قادنا لبدانا وان تجنا محان كودا قدال 8 جربت ما هو تنا ها وهبنا لكن صار مركز دجال كلا قالوا حقيقة أي اعتماد والدرب الكهري ماذا كيف ما أنت أثبت بادية كيف محان كودا ماشي كوه لاجمية أنا عادي هدي رمضان كسي سحة أصومتي مركو رمضان كساور دماغ إسلامين كشيطان كل سود دايو ومركز سندها كله أوه والله ما أنت عيد وجوادها فيري سوشي أنت بالفيري
laakiinse qalbigaani waa qalbi soo xukumay 30 maalin isku xigta ayuu wuxuu soo xukumay meesha isha fiirinayso markaas shaydaan ma awoodo in marka qalbigaani sida rabo uu ku yeesho indhahana meesha rabo ay fiirinayaan maxaa yeelay qalbigan iimaankiisa siyaaday alla ka cabsigiisii baa siyaaday taqwadaadii baa siyaaday markaas waxaad awood u leedahay inaa indhaha ka soo jeediso meesha aan fiicneen inaa carabka ka qabato inuu ku hadlo waxa maxaan ku dhahaa aan fiicneen laakiinse qofkii kale oo markii xataa ramadaanka uu soomnaa awood u yeelan waaye shaydaan uu ka xirnaa laakiinse awood u yeelan waaye inuu xakameeyo waxa indhihiisa fiirinayaan inuu xakameeyo wuxuu ku hadlayo inuu xakameeyo wuxuu dhegaysanayo wuxuu awood u yeelanayaa markii beri shaydaan la soo daayay inuu xakameeyo wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu maqlayo iyo wuxuu fiirinayo laa سبحان الله marka bishani waa bishii qalbiga toobar la siinay toobarna maxaa loo siinaya waxa la rabaa in awoodiisa ay siyaado waxa la rabaa iimaankaaga inuu siyaado waxa la rabaa alkacabsiyaada inuu siyaado marka qalbiga waxa la rabaa inuu awood u yeesho inuu xakameeyo xubnaha jirkaaga marka ilaahay hanaga dhow kuwa sida saxda u suman kuwaas awood u yeesha in dhammaan xubnaha jirkooda ay ka reebaan macaasida ilaahay kuna amraan waxa ilaahay jecel yahay si markaas iimaankooda u siyaado bari markuu shaydaan yimaadana uu shaydaan kugu dhow waxaas fiir uu qalbiga awood u yeesho inuu indhahayga xakameeyo ayaan ilaahay ka barya ilaahay waxaan ka baryaa in dhamaantii aan naga wada dhigtay kuwa ka faa'iideysta ramadaankaani naxariistaada rabbiga ku weydiisana dambi dhaafkaada rabbiga ku weydiisana rabbi waxaan ku weydiisana inaad naga madhigtid kuwa aad ka xoreysay naartaada ilaahu waalidkan u dambi dhaaf adduun iyo aakhiro kana dhig kuwa aad soo dhaweysatid waana mahadsantiin barakallahu fiikum waana sii shargaran kartaan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu